السلام عليكم داود الكسر هذا مقال عصب مقال كان waxaan uga hadlaynaa shan dhibaato oo xilligan ay wajahayaan dhalinyarada Soomaaliyeed haddaba inta aan u guda galin maqaalka waxaan ka codsanayaa sida caadada inoo ahayd inaad maqaalka si share gareysaan isla markaana aad la wadaagtaan asxaabtiina wixii aragtay aad igu reebtaan qaybta hoose ee faalada haddii aan u guda galno shan dhibaato oo xilligan ay wajahayaan dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatada koowaad waa shaqo la'aan sida lagu sheegay tirakoobkii ugu dambeeyay ee ay samaysay hay'adda Iftin Foundation 69% dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan shaqo tagin halka 25,000 oo arday ay jaamacadaha soo bogaan ama ay dhameeyaan sanadkii marka la isbarbar dhigo dal burbur ka soo kabanaya 30 sano ee ugu dambeeyay oo aan lahayn ila dhaqaale oo waaweyn oo loo shaqo tago sida warshado iyo shirkado waaweyn taasi waxa ay cakiraysaa culayska dhaqaale iyo tan nololeed ee hadda tafaha haysta dhalinyaradeena Soomaaliyeed dhibaatada labaad ama culayska haysta dhalinyaradeena waa nooca shaqo ee dhalinyaradeenu ay u baahan yihiin oo aan dalkeena ka jirin tusaale ahaan qofka dhalinyarada ah ee jaamacad dhameeyay suurtagal ma aha inuu ka shaqeeyo shaqooyinka gacanta laga qabto sida cunto karinta makaaniga ama harqaanka kuwaas oo ah shaqooyin kooban oo qofku uu noloshiisa ku maareyn karo sida ay muujinayso daraasad kooban oo ay dawladda Japan ka samaysay Soomaaliya waxa ay leedahay daraasadu qofka dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed shaqada kaliya ee uu doonayo ama uu ku fikirayo waa in uu ka shaqeeyo shaqo sare oo ah xafiis dawladeed maamulo banki madax maaliyadeed iyo qaar kale oo badan dhibaatada saddexaad ee dhalinyaradeena haysata waa hal abuur la'aan dhalinyarada Soomaaliyeed waxa aad ugu yar hal abuurka shaqo ee ku meel gaarka ah waa naadir qof dhalinyaro ah oo la yimid hal abuur uu ka hormarinayo naftiisa iyo tan qoyskiisa maxaa yeelay waxa uu ceeb iyo wax laga cararo u arkaa shaqooyinka asaasiga ah ee gacanta laga qabto sida iibinta cabitaanka shaah karinta kabatolista shaqooyinkaas oo ah kuwa hadii hal abuurkooda la dhiirigeliyo uu qofka dhalinyarada ka qaadan karo tusaale ku filan dhibaatada afraad ee haysata dhalinyaradeena Soomaaliyeed waa cadaadiska uga imaanaya waalidiintooda marka waalidku uu ku soo tacab iyo tiil beelo geed gaaban oo uu fuulo sidii uu jaamacadda mar u dhameyn lahaa ilmihiisu filashadiisa waalidka ugu weyn ma aha cabitaanle iyo baariste ee waxa u sawiran in uu helo shaqo sare oo ah xafiis dawladeed ama kambaniyada waaweyn ee dalka uu mar ka helo shaqo marka la isbarbar dhigo filashada waalidiinta iyo caqabadaha hor yaala arday dhameeyay jaamacadda waa mid aad u kala fog dhibaatada afraad ee haysata dhalinyaradeena Soomaaliyeed waa cadaadiska uga imaanaya waalidiintooda marka waalidku uu ku soo tacab iyo tiil beelo geed gaaban oo uu fuulo sidii uu jaamacadda mar u dhameyn lahaa ilmihiisu filashadiisa waalidka ugu weyn ma aha cabitaanle iyo baariste ee waxa u sawiran in uu helo shaqo sare oo ah xafiis dawladeed ama kambaniyada waaweyn ee dalka uu mar ka helo shaqo marka la isbarbar dhigo filashada waalidiinta iyo caqabadaha hor yaala arday dhameeyay jaamacadda waa mid aad u kala fog dhibaatada shanaad ee haysata dhalinyaradeena Soomaaliyeed oo ah qodobka ugu dambeeya muuqaalkeena waa inuusan marnaba ka baxayn xayndaabka saboolnimada xayndaabkani waa mid kamid ah dabar xoogan oo ku xiran dhalinyaradeena Soomaaliyeed afartii caqabadood ee aynu ka soo sheekaynay hadii uu ka soo boodo waxa hortaala caqabad lama dhaafaan ah taas oo ah caawinta qoyskiisa saboolka ahaa kafaalaqaadka xaaladaha waxbarasho iyo kuwa kale ee la soo gudboonaada walaalihii xaaladahaas oo isbiirsaday waxa ay sababayaan wax la yiraahdo low saving oo ah inuu meel wax ka dhigan waayo mushaarkiisa bilaha ah taasina waxa ay ka dhigan tahay inuu ka mid yahay dhalinyarada xilligan wajahaya shaqo la'aanta intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa shan dhibaato oo haysata dhalinyaradeena Soomaaliyeed waad ku mahadsantahay inaad muuqaalka daawataan muuqaalkan mid la mid ah intaan mar kale kulmayna nabadgelyo